agaasimo waaxeedka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland u qaabilsan dugsiyada gaarka loo leeyahay Muuse Maxamed Shide ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay diiwaan ay ku xusan yihiin kamida dugsiyada sare ee Soomaaliland oo ku yaala dhamaantood magaalada Hargeysa kuwaas oo wasaaradda waxbarashadu ay kala noqotay ruqsadii ay ku shaqeynayeen sababta loo garan noqdayna waxa uu ku tilmaamay inay ku kaceen talaabo khilaafsan sharciga wasaaradda kadib markii ay qorteen ardayda fasalka koowaad ee dugsiga sare sanadkan u gudbaysa oo aan wali wasaaradda waxbarashadu soo saarin natiijada ku aadan inay ku dhaceen ama ay ka gudbeen imtixaanaadkii dugsiyada sare ee la qaaday iyo in kale iyadoo ahayd sanad dugsiyeedkan 2017 in la furo bisha September ayaa dhawaaq badan iyo qaylo badan iyo baahi badan oo ku lifaaqan duruufo ay soo qadimeen gaar ahaan dugsiyada gaarkii wasiirku isagoo eegaya duruuftooda wuxuu ka dhigay bisha August 5 dugsiyada la furo laakiin bishart shuruud baa lagu xidhay eedadka ilaa la saxayo imtixaankoodii oo inanka baasay iyo inanka dhacay la kala ogaado oo ay shahaadadoodii gacanta ku dhigaan dugsiyada sare ma fadhiisin karaan saasay ballan tahay waxa ka yimid inaanu maqalay inay foomonadii dugsiyada sare qaadanayaan marka dadka ummaddu ilbax tahay ee wadaniyadu ku jirto waxay qaataan awaamiirta haddaba dugsiyada gaarka ana la daba fadhiista ana ka agaasima dugsiyadan maray ee indhahayga ku arkay inta maqalka dooni maayay inta ku tirkuteenka 930 dugsi sare ayaa ku yaala magaalada Hargeysa caasimada 8 u horeyseen maanta la kulmay iyagoo ardaydii haya waxaan ugu bushaareeyay mar hadii ismaqalkii la dhaafay oo kala dambeyntii la dhaafay waxaan markaa maanta ku bilaabaya waa raxanta koowaad eenu kala noqonay ruqsadii ay ku shaqeynayeen waxa ka dugsiga sare tomorrow laba dugsigii Shamsuddin la oran jiray imikana la baxay 17 oo ay bedeleen magaciisa ka saddexaad waa Ilays 1 ka afraad waa Ammaano ka shanaad waa Aklas ka lixaad waa Caalami ka toddobaad waa Future toddobada dugsi sare waxaan u sheegaynaa ama mulkiilihiisa ama maamulihiisa inay dhagaha ka fureysteen dhawaaqii iyo awaamiirtii ka soo baxday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare si adarteed ilmaha uu maanta fadhiisiyo iyadoo natiijo loo soo saarin markuu lacag ka qaado muxuu ku qancin bari markii natiijadu soo baxday ilmahaasi dhacay maxaad ku qancin maamule ninkan dugsigiisa xidhnaa maxaad ku qancinaysaa ruqsadii waanu kala noqonay wixii dacwada ama maxkamadaha sare u gudbista ama heeg la taga waa go'aan Cabdi Shakuur Dayib Maxamed Home Cable TV Hargeysa